aan khudad u dhigo aan ku cuno labadoodaba. Maxaa aad ka qabtaa in aad ayeyda ubax ugaga sii ururiso kayntan? Ayeyda way ku farxi doontaa ubax haddaad ugu ururisid. Waa fikrad wanaagsan. Waana ururin doonaa. Ayeydayna markaan u ururiyo waxay siin doontaa shukulaato. Haye, anigu waan sii soconayaa ee ubaxa soo ururi. Haye, bye bye. La 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 la. Marka aan labadiina waanin cuni doonaa. Markaanin cunana waan dhergi doonaa. La 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 la. Waa kan gurigiis laanta. Waayo, isagu waan kaa furayaa haye. Islaantu aad iyo aad bay u macaaneyd ina tayarna hay timaado. Waan sii xiranayaa dharkan. Halkan waa in aan sii seexdaa. La 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 waxay soo gaadhay gurigii ayeydeed. Waxay soo gashay gurigii ayeydeed waxayna ag fadhiisatay ayay iska war ina taydiye waan fiicanahay imikana aad ayaan u fiicanahay ee adigu iska waran. Waan fiicanay ayay laakiin maxaa ku yeelay indhahan waaweyn? Ina taydiye sidan adiga si fiican kuugu arkan. ayay maxaa ku yeelay dhagaha waaweyn? Ina taydiye sida aan kuugu maqlo si fiican ayeeyo. ayay maxaa ku yeelay ilkahan waaweyn? Sidan adiga kuugu cuno. Kaalay 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 hagaad u cararaysaa kaalay. Wayna xagan iska yar seexdo. Waxa maqlay dhawaaqa ka soo yeerayayga nin dibadda marayay oo soo guranayay xaabo kaynta ka soo guranayay.